madashan isugu yimi qaraarkana soo wada saaray aad iyo aad baan u salaamayaa oo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo salaamayaa bahweynta saxaafadda halkan nala joogta waxaan kaloo salaamaynaa ummadda reer Somaliland ee aanu qaraarkan soo bandhigayno ayaanu iyagana guud ahaan ayaanu salaamaynaa waanu doonaynaa inay ogaadaan marxaladda siyaasiga ah ee qabanqaabada doorashooyinka halka ay marayso sidii uu sheegay Axmed markii uu akhriyay qaraarka labada xisbi una u tilmaamay muddo 13 bilood inay soo socotay ana kaba badanayo inay filayso ka badan tahay wadahadalka waxaanu bilownay bishii March bilowgeedii 2018 oo kulankii u horeeyay xisbiyada ay isugu yimaadeen iyo dhowr kulan oo dambe ku xigaba uu madaxweynuhu martina geliyay kuna qabtay xafiiska madaxweynaha waynu la soconaa markaa Somaliland dal curdina baynu nahay dalan la aqoonsanna waynu nahay laakiin bulshadu maanta waxay inoola isticmaashaa sidii qaran jira kaliya safiiro ay dawladuhu leeyihiin qaar baa imika inala jooga safaaradaha inala jooga qunsulyaal baa inala jooga laakiin dawladuhu waxay noola isticmaalaan sidii dawlad jirta oo waxay noola isticmaalaan dhammaan curfiyada iyo qawaaniinta caalamka dawladuhu ay ku wada isticmaalaan laba shay baa inta inoo soo dhaweysay laba shay baa inoo suura geliyay inay adduunyadu sidan imika inoola macaamilaan waqtigiina bisha 3 4 waxa halkan inoogu yimi dhammaan safiirada dawladaha reer galbeedka oo Yuruba halkan inoogu yimi waxa inoogu yimi maxaan ku dhahday safiirka dawladda Mareykanka uu jooga Soomaaliya iyo Somaliland oo soo xil saaray baa inala joogay laba arrimood baa arrinka inoo suura geliyay labada arrimood oo inoo suura geliyay waxa weeye mid waa nabadgelyada shacabku uu ku mahadsan yahay ciidamadeena amniga ee qaranka Somaliland ay ku mahadsan yihiin dawladda Somaliland ay ku mahadsan tahay tamaanta xilka haysa tii ka horeysay ilaa iyo bilowgii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qodobka labaad waxa weeye waa nidaamka doorashooyinka Somaliland waa lagu amaanay waa lagu majartay waa laga marxaati furay waa la socotaan doorashadii maxaan ku dhahday imika u dambeysay dawladaha reer galbeedkii waxa inoo soo casumeen 60 xubnood oo goobjoogayaal caalamiya oo ka kala socda 720 dal koonfurta iyo waqooyiga maxaan ku dhahay waqooyiga Mareykan Canada America dhammaan Europe Africa Asia Australia Switzerland intaasoo dhan bay ka socday arrinta markaa imika aanu muddadaas soo wadnay fadhiyo fara badan oo amka dhowto tiradoodaba aanu sheegi doono markaanu ku murano annaka iyo xisbiga wadani ayaanu soo qabanay kulmiye iyo wadani baa in badan wada shiray wadani iyo cid baa wada shiray cid iyo kulmiye iyo wadani baa wada shiray aakhirkii ugu horeysay waxaanu isla gaadhnay kulanka madaxweynuhu xafiiska ku qabtay bishii March bilowgeedii inay doorashadu qabsoonto March 2019 bishiina dhaaftay oo baarlamaanka xilligiisu ku dhamaa ayaanu saddexdeeda xisbi isku waafaqnay si aanu doorashada uga shaqeyno inaanu qabsano guddi saddexda xisbi ka tirsan oo mishan xubnooda waanu bixinay guddidaas inay noqoto task force saddexda xisbi wakiil uga komishanka doorashooyinka howlaha qabta xisbiga wicid shantiisa xubnood wuxuu soo gudbiyey bishii March 6 gudoomiyahooda Faysal Ali Waraabe ayaa gudoomiye ka bishii 6 buu soo gudbiyey xisbiga kulmiye bishii 8 buu soo gudbiyey xogayaha xisbiga Xasan Saciid baa saxaxay tuugna ma xado xisbiga wadani waxa saxaxay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani oo guddidana xubin ka ah ayaa soo saxaxay
waxaanu soo saxeexay bishii sagaal iyo tobankeedii march 19 ayuu soo saxeexay. dabadeedna saddexdeedii guddi baanu isu keennay, way dhammaystiran yihiin. waxaanu doonaynaa markaa inay saddexda waxaanu ku ballannay saddexdaa guddi ma noqonayaan guddiyo soo kala habsaama oo had iyo jeer iswaaya. waxaanu samaynaynaa inay xafiis fadhiistaan oo maxaanku dhahdayey loo sameeyo maxaanku dhahdayey miisaaniyad yar xusbiyadu ay u sameeyaan, ama haddii xukuumadda la amro xukuumaddu ay u samayso ilaa iyo maalinta doorashadaasi ay dhammaanayso 15 nin inay meel wada fadhiyaan, commissionkana ay la shaqeeyaan. sidaanu de isu lahayn dunidu way isqabsatay. burcad beerkiina baa ilaahay burcad isu mariyey. arrintii way dhammaystiran tahay, guddidiinni way dhammaystiran tahay. nimankii nairobi iyo qaadhaabixiyaashiina maanta ka adkaanaysaan ayuunbaa maxaanku idhaahdayey guddoomiyaha xusbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu madaxweynaha u soo qoray warqad 14 biis ka kooban. horena waanuu sheegnay, saxaafaddana waa haysataa. warqaddaa waxaa ku qoran codsi xilka qaadis xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka. halkaas siday uga kacday ilaa iyo maalintii waxaanu la meeraysanaynaayo ilaa iyo maalintii aanu doonaynaa inay xusbiyadu ay yeeshaan qaraar. xusbiyada komishankan doorashooyinka wuxuu ku qoran yahay ama ku samaysan yahay xeer la yidhaahdo xeer number 20 2001 ayuu ku dhisan yahay. 2-3 malaa iyo jeerba waxa laga soo bedelay. maalinta xeerkaa la magacaabo, xeerkaa maalinta commissionku uu baarlamaanku ogolaado ay commission qaran noqdaan, nina ma xukumay, waa hay-ad madax bannaan. sidii dhacday marar fara badan. waa nimanka dee marka awoodda dalka kala saarayo odhanaya codkii waa laga helay madaxweyne axmed siilaanyo, codkii waxaa helay madaxweyne ah mudane daahir riyaale kaahin iyo wamaa ilaa daalik. sidaa iyo sidaasa ay u soconayso. xumishanka qaadistoodu xeerka hadduu se ku qoran yahayo cid kale oo xilka ka qaadaana ma jirto. saddexdeeda xusbiya isku raacnaana kama qaadno, madaxweynuhuna kama qaado. sharci iyo loo maraa bay leedahay, dunuubbaa loo maraa. marka ay noqoto in dembiga lagu helo oo laga qaado xilka, inta madaxweynaha la doortay ee ummadda somalilan dooratay xilka lagaga qaado ayuu baarlamaanku xilka kaga qaada iyaga. 3 daloolow 2 meelood. waxaa intaa loo adkeeyey nimanka ayaanu xusbina gacan maroojin. hadday intaa soo socotay, hadday dadaaladaas oo dhamme ay soo socotay, haddii doorashadu muddo fara badan ay nagu raagtay, haddii iminka markii ugu dambeeyey golaha guurtiga loo gudbiyey ay qoondeeyeen oo asteeyeen xilliga doorashada la gelayo, haddii ay soo socotay xilligii commissionku ay qorsheeyeen ee ay yidhaahdeen annaka haddaanu commissionka nahay waxay nagu qaadanaysaa 10 bilood in aanu qorshayno howlaha doorashada, oo iminkana 10 bilood ay in badani cunatay. wadahadalkii dib aanu isugu noqonnay sidii uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu sheegay, axmedna uu sheegay, xusbiga ucid iyo xusbiga kulmiye ayay dib isugu noqdeen. dood fara badan oo dambaanu dib uga yeelanay. qaraarkananu muddo doora soo wadnay, waanu isla gaadhnay, dan baanu moodnay way ka fiicnayd xusbiga wadanina inuu qaraarkan ka mid yahay, isagoo sidan u eg iyo isagoo laga yaabo inuu si kaleba yahayba oo wax laga bedelay da aragtiyaha marka la sukeenay way ka fiicnayd. hase ahaatee faras dabadii nin ka degay meel uga toomoon buu waaye baa layidhi. waxaanu ka qaadi weynay sid mas-uuliyadda annaka labadeeda xusbi naga saaran iyo waajibaadka naga saaran inaanu annaku caddayno mowqifka iyo halka aanu ka taagannahay arrinta doorashada. xusbiyada xusbigana ugu da'weyn, kulmiyaa ku xiga, wadani baa ugu yar,
doorashadii ugu horreysay ee 2002 laga soo bilaabo labadan xisbi doorashooyinkaasoo dhan bay ku jiray waddanina kuwii dambu ku jiro annagoo xisbiyadu hanti kale ma leh ilmo kale ku tabcaan ma leh xisbiyadu waxay leeyihiin barnaamijka siyaasadeed ay u samaysteen waa doorashooyinka ay tartanka ku kala helayaan annagu waxaanu ka doorbidi weynay in annaku arrinkaa doorashada labadan xisbi gacmahooda aan waxba laga saarin inaanu ku burburin in aanu komishanka doorashooyinka aanu maxaanku dhahdaye hawshii komishanka aanu annaku halka iyagii istaagno doorashadii diyaar u nahay dhowaanna waanu wargelin doonaa dadka damaca siyaasadeed leh iyadoo la raacayo xeerka doorashooyinka u degan ee golayaasha wakiilada ka doonaya in ay iska soo sharaxaan inay xisbiyadu wargeliyaan oo ku yidhaahdaan soo diyaar garooba si loo mariyo marxaladii maxaanku dhahdaye ay lahayd waxaan kusoo ururinayaa waxyaalihii xisbiyada aanu ka wada tashanay ee isla eegnay ee isnidi cabashooyinka jira ee axsaabta ha lagu daro waxaa ka mid ah in talo lasoo jeediyo odhanaysa in 2 xubnood laga dhigo komishanka doorashooyinka lagu daro oo ay 9 noqdaan waanu isla ogolaan xisbiyada macaaridku way soo jeediyeen qoladayada xusbul xaakimkaa la eegayey annana lamaanaan intay diidin waanu lawna waafaqnay hawloo dhan waan isku soo hagaajinay halkaasay maraysaa annaka dadaalkayagii waxa uu ka maarmi waayey inaanu nidhaahno doorashadii annaka komishanka doorashada waanu la shaqaynaynaa xilna iyagaa leh xilna annakaa leh doorashadii diyaar baanu nahay ummadda somalilandna waxaanu jecel lahay inay dhammaanteed u wada diyaar garowdo doorashadaas inay xilligeedii noogu qabsanto